dufcaddii toddobaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Togdheer ee magaalada Burco oo dhan 150 arday ayaa munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jabinayaan loogu qabtay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland barasaabka gobolka Togdheer afhayeenka xisbiga wadani xogayaha warfaafinta ee xisbiga UCID iyo marti sharaf tiro badan oo lagu soo casuumay munaasabadda ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Togdheer Professor Axmed Ismaaciil hormuudka kuliyadaha ee jaamacadda Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha ardayda jaamacadda iyagoona ka xog waramay tayada iyo heerka waxbarasho ee jaamacaddaasi Togdheer. jaamacadda Togdheer waxay imika jirsatay 10 sano waana dafcaddii toddobaad ee ka baxay 10 sano ee ay jirtay arday ka badan 1500 oo arday ayaa ka qalin jabisay maantana masalyo waaweyn qaarkood ka haystaan qaranka iyo dalka iyo gobolka waxaan imika bilownay wax la yiraahdo laba kaclayn oo jaamacaddu aanu ugu talagalay inaanu meel muxtarima ku geyno haddii danka Ilaahay ka dhigo waxaan weyn la saxeexanay heshiis jaamacad ku taala dalka Ingiriiska oo la yiraahdo Oxford College waxaanu kala saxeexanay sidii aanu u hirgelin lahayn English Department qayb Ingiriiska oo jaamacadda aanu ku soo kordhin doono mustaqbalka aad u dhow waxa kale oo aanu dardar gelinay in wixii aanu haynay aanu tayayno oo ay ugu muhiimsan tahay laababka caafimaadka iyo informaticska laboratoryga baarista cudurrada lagu baaro waxaanu mustaqbalka dhow ku tala jirnaa inaanu u bedelo cusbitaal jaamacaddu leedahay oo la yiraahdo Teaching Hospital Togdheer Teaching Hospital si ardada jaamacadda u soo gashaa ay u hesho meel ay practice wanaagsan ku qaadato runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay tooliska ama aaladaha ay bini'aadamku isticmaalaan kuwaasoo lagaga baxo xanuunada colaadda faqriga waxaan ku rajaynahay 150 arday maanta baxaya inay wax badan ka bedeli doonaan qarankan aqoontii aad ka midho dhaliseen ee aad kala tagteen xarunta ama hooyada aqoonta ee jaamacadda Togdheer waa inay idiga muuqataa dhankooda waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda waxbarashada taliye ku-xigeenka dadamiska Togdheer iyo waalidiin iyagoona hambeliyay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Togdheer إذا شعب يوم أراد الحياة فلا بد لليل أن ينجلي ومن لا يحب صعود الجبال يعيش الأبد بين الحفر معناها وسوى قرار يستانوح كسو قبقبي نينكا آن وقولاني إنه بورها فانتو وحكونا ولان دونا ولي جيبا قد كبوران تعوضا يقول مستعيبتنا ولان دونا انت عاد داشين إن يربايدين هذا إن شاء الله انت كلنا سيوتا وصود داشين وقت عادك بوصو وحويا صورنا برا ضيقتين وقت بدم يجهد بدم باقليسين وحبر الشضع وحسوق قالين هير قلب بدل الشو إن أيضا كجهرين هلكا إمكا عمريسان وأنهم بلينا ما شاء الله دذلك وين جهد وين جوال كينان قيمها يقايها بدن أي واحد يكونتي كوضو وأنا كمان بلينا معمل كجامعة القدوميها يضمان وهذه جامعة ضمن afhayeenka xisbiga wadani barkhad jaamac batuun xogayaha warfaafinta ee xisbiga UCID Yuusuf Kayse Cabdilaahi ayaa dhankooda hambeliyay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Togdheer Togdheer University waxa weeye waa magaca gobolkani leeyahay aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadnaqayaa maamulka board of directorska jaamacadda iyo stakeholders oo dhan iyo cid kasta oo ka qayb qaadatayba waxaan idin leeyahay mustaqbalka waxaan idin rajaynayaa guul baan idin rajaynayaa haddii intiina caafimaadka baratay aad isqaybisaan oo islaanta caydaba joogta ee caafimaad u baahan iyo odayga oog jooga ee caafimaad u baahan iyo ilmaha jooga ood weyne u baahan waxbarasho aad mas'uuliyad iska saartaan maxamuud axmed cali waxbarashada Soomaaliland oo kala noqon karaysaan waydu ku jira laakiin maskaxdiina yeena ku sawir minuun
u cidiyo wadan iyo kulmiye iyo isaysto oo maxaa ahayd hebel baa baxayo yeena idin jihayn tiimam kaliya idinku wax jiheeya idinka aqooyahankii ugu dambeynna waxaa halkaasi ka hadlay la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland Cali Warar Cadde iyo sidoo kale barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd Dalkir iyagoona hambaliyay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Togdheer sidoo kalena bogaadiyay maamulka iyo macallimiinta muddada wax soo barayay ubadkaasi inaynu ciideena aamino inaynu ciid burcanimadeena aamino goboladu way tartamayaan aad iyo aad bay u tartamayaan anigu waxaan soo dhaweynaynaa ardayda halkan ka baxday shaqo qaran baa ku jirta oo maanta xukuumaddu ay samaysay waxa loo xidhay inaan shaqaale cusub la qaadan karin inta ardaydeena jaamacadu joogaan farxadan iyo raynrayntan ee aynu maanta ku faraxsannahay dhalinyaradeenna faraha badan ee taashkii waxbarashada gashan ee maanta qalin jabiyey oo aan jeclahay halkan iyagana inaan uga mahadnaqo oo aan idhaahdo hambaliyo mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa waalidiintii ku soo tabcay muddada dheer dhalinyarada maanta halka soo gaadhay gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyey 150 arday ee ka qalin jabiyay jaamacadda Togdheer ee magaalada Burco Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.